kulanti wacan oo wanaagsan daawadeel halkan waa wacaalkii badii ay tahay markuu guuraysa soo booqatay channel-kan please subscribe noo saar si ay ku soo gaaraan muuqaaladii ugu dambeeyay aynu soo galino waxa caawa si rasmi ah loo soo saaray filimka Guud Newz iyo lacagaha uu soo xareeyay gudaha India iyo daafaha caalamka filimka Guud Newz waxa tiyaatarka la soo saaray 27kii bishii December sanadkii hore waana filim comedy drama kaasoo uu hogaaminayo Akshey waxaana atriisho koowaad ka ah kariina kapuur iyadoo ayna ku helinayaan Kiara Advani iyo Daljit Singh shabakada box office-ka India ayaa caawa si rasmi ah u soo daabacday filimkan lacagihii uu soo xareeyay muddadii uu tiyaatarka saarnaa wuxuuna soo xareeyay 304 koror asigoona dhanka dibadda aad ugu fiicnaa wuxuuna noqday filimkii saddexaad ee daafaha caalamka lacagaha ugu badan ka soo xareeyay 2019 waxaana ka lacag badan kaliya filimka waar iyo kabiirsin Guud Newz wuxuu UK ka soo xareeyay 1 milyan asigoona ka wanaagsan lacagihii ay sanadkii hore halkaas ka soo xareeyeen filimada Baharat iyo Filmka sidoo kale East Punjab wuxuu ka noqday filimka lacagaha ugu badan ka soo xareeyay 2019 isagoona ka keenay halkaas 26.94 koror wuxuuna dhaafay lacagihii uu hore halkaas ugu soo xareeyay filimka kabiirsin kaasoo East Punjab ka keenay 25.74 koror Guud Newz wuxuu US Canada ka keenay 5 milyan asagoona noqday filimka lacagaha ugu badan halkaas uga soo xareeyay Akshey Guud Newz wuxuu US Canada ka keenay 5 milyan isagoona noqday filimka lacagaha ugu badan halkaas uga soo xareeyay Akshey wuxuuna dhaafay rikoorka filimka Mission Mangal hadaba halkan kaga bogow filimkan iyo suuq walba lacagaha uu ka keenay lacagaha uu gudaha India ka keenay ka hor canshuurta inta laga qaadan waa 229.42 koror lacagaha uu gudaha India ka keenay canshuurta kadib waa 196.31 koror US Canada wuxuu ka keenay 5 milyan iyo 43 kun Gulf wuxuu ka keenay isna 1 milyan 710 kun Australia 1 milyan 544 kun dollar iyo dhamaan daafaha caalamka oo isna ka keenay 1 milyan 250 kun lacagaha oo total ahaan dhamaan uu soo xareeyay waa 10,510 kun dollar oo u dhigmata 74.88 koror warbixintan halkaas ayaan ku keenaynaa haddii ay tahay markuu ugu horeysa soo booqatay channel-ka wacaalkii please subscribe inoo saar oo gambaleelka furo si ay ku soo gaaraan warbixinada ugu dambeeyay aynu soo galino